حاطيدك عيوم حلقي لشوق بحر سمية kuryara aada u macaan oo aada u macaan badan oo caruurta u wanaagsan waxyaabahan ka samayn doonana waniga inay tustusaaya waxay ka kooban yihiin ukun haaf bikeeriyo caano ah hadda waxaan sameynayaa hal qaato oo khamiir ah iyo bikeeriga barhkii oo caano ah iyo 2 qaato oo sonkora iyo hal xabo ukun ah iyo qorofal qaato qorofal ah qorofalka balkan dheer ee bariiska lagu darsado ee qorofalka loo yaqaan iyo qaado yaro milix ah intaasaan isku walaaqayaa inta markaan isku walaaqay isku fadhiisiyo waxaan sameynayaa insha Allah daqiiqda iyo 2 nooca daqiiqda cad iyo daqiiqda galleyda ah cas ayaan ka sameynayaa dabeedna intaas waan isku xashayaa markaan isdhex geliyo isku xasho macnaha isdhex geliyo burka iyo maaragtay alaabtiisa waxaan sameynayaa insha Allah waan dabooli doonaa laakiin hadda wali waan xashayaa barkii horta waa inaad si fiican u xashto hadda waxaan ku darayaa subag in yaro subag ah oo barafka ka soo saaray hadda beesha miiska ayaan ugu shubayaa daqiiqda si fiican ayaan 15 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ayaan si fiican u xashayaa isu dhex gelinayaa waayo subagii baa ku jira hadda waxaan kaloo xitaa soo qaadanayaa gobol yar oo kale subaga insha Allah gadaal bay naga tusi doonaa hadda waxaan sameynayaa horta si fiican baan isu dhex gelinayaa waxaashayaa u diyaarinayaa hadda waa artaa daqiiqdu say u jilicsan tahay hadda waxaan ku sameynayaa gobol yar oo subaga ayaan soo jartay intaa yar waan ku darayaa waan ku xashayaa waan ku jilcinayaa 5 daqiiqo ayaan haddaba sii diyaarinayaa hadda waxaan soo qaadanayaa bahalkii aan ku diyaarin lahaa waxaan soo qaadanayaa waraaqo ayaan jarjaranayaa waraaqahaas oo waraaqa ofinka la geliyo xitaa haddii aanad dukaanka ka soo iibsan karin waxaad sameynaysaa adiga ayaa jarjaran kara gacanta ku jarjaran kara marka anigu waxaan ku jarjaranayaa hadda maqas ayaan ku jarjaranayaa haddii kale aad u baahantay inaad dukaanka way yaalaan iyagoo sidaa u jarjaran oo diyaarsan oo baakad ku jira waayo saliidaan rabaa inaan dhex dhigo shay walba halkiisa uu istaago oo aanu maaragtay iga xumaanin marka gadaal baa ka arki doontaan hadda waxaan diyaarinayaa waraaqii baan hadda jarjaranayaa xabad waliba waxay noqonaysaa dhowr iyo 10 xabo 24 xabo ay noqonaysaa marka hal mar baan soo jarjartaa bac baan ku shubtaa meel baan dhigtaa markaan burka doonayo inaan ku dubo ama keeka saaro oo kale si aan bahalkayga dhigin hadda waxaan ku diyaarinayaa waxaan soo qaatay taray waxaan loo yaqaano alaabta maarta la saarto bikeerida iyo bahalka weyn baan ku fidinayaa hadda waraaqda saarayaa hadda ka waraaqda markaan saa ugu diyaariyo waxaan sameynayaa insha Allah alaabtii baan soo qaadanayaa burkii oo aan 20 daqiiqo soo daboolay oo in yar soo faxay laakiin gadaal ayaan ka dabooli doonaa ka in yar buu soo faxay barkii 20 daqiiqo ayaan daboolay saas uu jilcisayo macaan yahay caano nafaqo wax kasta ilmahaaga aad casarkii marka ilmuhu tiifiga iska daawanayaan ama ciyaarta banaanka aad geynayso kala ayad intaad u samayso mid walba caagadiisa ugu gurto ayaad caagad biyana u qaadaysaa ilmaha allergy badan baa ka baxa cunto badan bay u baahan yihiin waa muhiim cuntada ilmaha marka cuntada way kula korinaysaa saasaad u yaryaraynaysaa hadda waad u jeedaa 2 nooc wada samayn kartaa saana wada soo duubi kartaa gacantaadana waad ku maaragtay saasaad ugu samayn kartaa hadda waxaad samaynaysaa waad saaranaysaa saa markaad u saarato 3 xabaad u dhigaysaa 4 xabaad u dhigaysaa 5 xabaad u dhigaysaa 1 xabaad u dhigaysaa sida adigu aad rabto ayaad u samaysanaysaa insha Allah muhiimada waxa weeye daqiiqdu inay si fiican ku xashinaato isu dheelitirnaato hadda labalabaan saa isugu bardhigayaa hadda waxaan sameynaynaa intaan isku soo noqonaynaa intaan maaragtay soo buuxinaya saxniga ay maanta kamaradu ma qaadanaysa hadda wada waan soo wada diyaariyay mid 5 xabaan ka dhigay mid 3 xabaan ka dhigay mid 6 xabaan ka dhigay mid waxaan ku oray 3 xabaan ka dhigay mid 4 xabaan ka dhigay
saasaan usoo diyaariyey. Dabool baan jag ku siinayaa, bac baan afka ka saarayaa, bacda aan jarjaray oo kale wataasay iigu huuriso kumana dhegayso. Shukumaan ama marada kijada loogu talagalay oo kale ayaan korka ka saaraya, kolba wixii aad haysatay yara kijada loogu talagalay. Jag wataa hadda way soo faxday, way si soo qabsatay, soo ma jeedid markaa hadda way soo faxday. Saliidii ayaan hadda diyaarinayaa insha Allah. Saliidii maaha inay xoog kaga kululaato, haddii kale hadhacaysa marmar maaragtay inuu anu kalar guduudan jeclay casaan. Kole dadka qaar baa laga yaabaa inay dee gubniyo u yaqaaniin, laakiin dhowr kalar baan ka dhigaa, waan jecelahay. Marka hadda saliidii waan ku shubayaa, waad aragtay xoog saliid uma kulula. Hadhow warqadda saliidda waan ka dhex gurayaa, waan ka dhex saarayaa. Wax weyn maaha barkii waa loogu talagalay warqadda, ma dhalaalayso. Marka waxaad sameynaysaa saasaad ugu guranaysaa. saa markaad ugu gurato aayar dabadna warqadda dhigto xagga kale markaad u gedido unbaad warqadda aayar kasoo dhex saaraysaa. qaadada weyne lagu walaaqo alaabtana waad soo qaadanaysaa insha Allah. wataa hadda saasaan ugu soo saaray, warqaddu ma dhalaalayso, wax uma noqonayso. adaa jarjaranayo diyaarinaya, maxaa lacag kaa gelinaya warqad hadda quruxdaas ku soo baxay. macaanka hoostana wallahi nadaafka ka qaadi karan, ilmuhuna iskama qaban karaan, wax aad u macaan. xitaa ilmuhu ku cashayn karaa barkay caanuu leeyahay, ukun buu leeyahay, subag buu leeyahay, wuu isu dheeli tiraya maasha Allah. waxaad sameynaysaa markaa hadda waad kasoo guraysaa. markaad hadda kasoo mar wuu kaa kala go-ayaa oo marmar buu noqonayaa, mar saddex buu kuu noqonayaa. muhiimad wax weeye inuu si fiican kuugu dubnaado, si fiican kuugu samaysmanaado. hadda waxaan sameynayaa kaasi waa 6 xabo isku dhagan oo ay diyaarsan yahay. jag waan dhex dhigayaa. 6daa markaan saa u dhex dhigo in kala soo qaadaya, haddana waan ku gurayaa. 5 kalan haddana ku riday. hadda kii hore 6 buu ahaa, kana 5 weeye. 4 baan haddana ku ridayaa. waa laanduu camal, sidii laanduuda loo dheelayaa no. hadda markaan intaa ku sameeyo waxaan sameynayaa oo kale xagga kalen rogayaa, bacahan ka gurayaa. bacahani waa sida kartoonka oo kale ujeedaa. xagga laga gudiyaysaa qaadada sada hal mar baad qaadada kaga soo guranaysaa. maanta intaad maaragtay xabad soo saaraad hal mar baad saa soo dhex dhigaysaa, kasoo guraysaa. asxaabta qaaliga dhammaantii waxaan idin rajaynayaa saa aad ula socotaan. barnaamijyo badan baa idin soo wadaa haddii Ilaahay ka dhigo. waxaan jeclaystay oon rajaynayaa insha Allah inaad asxaabtiina la sii wadaagtaan, inaad ka faa'iidaysataan. muhiimaduna waxay tahay inaynu maaragtay wixii talaa ay soo gudbino, hadday cunto noqoto iyo hadday wax kasta noqoto. hadda saxni baan kusoo diyaarinayaa. waxaan korka kaga soo shubayaa sonkorta maaragtay budada ah ayaan hadda korka kaga soo shubaya ugu diyaarinayaa. wixii aad jeceshay, maadaama kani hoosta uu bur badan daqiiqa waxaan leeyahay cunto badan oo nafaqo leh ka wato, hadday ku noqoto, hadday caano noqoto, inta badan sonkorta la dhex galiya laguma samayn karo barkii uu kaa burburaya. marka wakaa hadda waa macaankaas jag saa haddaad u kala jirto waxaan ku waa sidii keeg oo kale, dooljaha oo kale. wakaa macaan wallahi afka kama qaadi kartid. baroobe ilmahaaga siiso, hooyo walba